haweeney masiir dartiisa xabsi guri ka dhigtay ninkii ay jecleed. intaan u gudgelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid. haweeney masiirtooy ah oo u dhalatay dalka Argentina ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay xabsi guri ka dhigtay ninkii ay jecleed muddo 3 maalmood oo xiriir ah. ninkan ayaa waxa ay wada socdeen muddo 6 bilood ah. sababta ay sidaasi u sameysay ayay ku sheegtay in ay ka hortageysay in ninkan uu qiyaamo ama dumar kale uu la sheekaysto. booliska ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in ay ninkan 29 jirka ah ay ka soo badbaadiyaan xabsi gurigii uu ku jiray muddadii 3 maalmood ahayd. ninkan ayaa inta guriga aan lagu xirin mobilkiisa laga jajabiyay si uusan cid kale xiriir ula sameynin. wuxuu samaareeyay ninkan in uu xado taleefanka saaxiibtiisii xabsi guriga ka dhigtay kadibna uu fariin gaaban oo badbaadi ah uu u diray saaxiibkii oo markii dambe arinka wiilkan ku wargeliyay booliska. haweeneydan oo 30 jir ah ayaa boolisku xabsiga dhigeen kadib markii ay yimaadeen gurigii ay sida qarsoodiga ah ugu haysay ninka saaxiibkeeda ahaa. ninkan oo la hadlay booliska ayaa sheegay in saaxiibtiisa ay masiir badan tahay, mar walbana ay su'aalo ka keeni jirtay haddii uu guriga ka soo dib dhaco waqtigii ay u qabatay.